السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامي أصحابتا ملك صوت دون كجوكتين وحان دين لي هاي مر هدي أتصولا وتي أضوع عافيمات قو مرلبات وما هدي لي الله هاجا سي الحمد لله. ما أنت وحان روا إن أنك هدلو أرنت شويلا هوسي وبيج شويلا أو جستي فتهاد باهن أو كو جستي دقمدا أفقوي حتى أنا هاي صومالي وحان لينا هاي ليك وحان لينا هاي دعان وحان لينا هاي دت وحان هاي دت isku gargaara iscaawiya waxaan go'aansaday maanta inaan ka hadlo arinta afgooy ma u soo istaagin halkaan inaan qof ku weeraro amba inaan qof cambaareeyo ee waxaan u soo istaagay Soomaalinimo iyo inaan codkayga gaarsiiyo intuu gaarayo dabcan degmada afgooy waxa mara wabiga Shabeelle oo sanad kasta ka geesta fatahaado badan laakiin sanadkan waxa lagu sheegay fatahaadiisa inay zaid u daran tahay waxa lagu sheegay 6,000 oo qof inay barakaceen masaakiin badan ay ka baxeen guryahooda masaakiin badan ay la xanuunsan yihiin caruurtooda cudurrada ka dhasha biyaha markay soo fatahaan waxa taas u sii dheer roob weyn oo ka sii da'aya gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan degmada Afgooye kaasoo sii geysanaya rafaad badan iyo biyihii meel yaalay ayaa ka sii dhalanaya xayawaanaad kuwaasoo sababaya shacabka inay qaniinaan kadibna cudur ay ku sababaan amba inay sababaan cudurro badan oo ay ka mid tahay malaariyada oo ay ka dhalato ilmaanyada amba kaneecada saa u taqaanid kaneecada waxa keena biyo meel fariistay kaneeca ayaa ka dhalata baadeen kaneecada qofkay qaniinto waxa ku dhaca malaariyadaas ayadoo la sii tacaalayo degmadiina oo ku jira fatahaad baahan oo maalinta ka sii dambaysa ay sii galayso marxalad cusub masaakiintii iyo barakacyaashii oo sii badanaya sidaas daraadeed waan adkeysan waayay in aan ka aamuso arintaas waayo waxaan ahay dhiig Soomaali iyo dhacaan Soomaali iyo dhalin Soomaali waxaan jeclahay mar waliba dadkayga dhibaataysan in aan codkayga meeshuu gaaraya aan gaarsiiyo walaal fadlan sheer garay haddii ay kugu weyn tahay Soomaalinimada degmadaas kuma jiro waxyaabo aan maanta la dayalsan karin waayo waxa ku nool dad masaakiin oo beeraley ah waa dareemi kartaa beeraley hadday biyihii ay ku soo fatahaan biyihii ay u baahnaayeen biyo ka badan ay u imaadaan baasha way isku bedelaysaa musiibo waa musiibo qaran runtii aan aad ugu xumaanay inkastoo aanan joogin waddanka haddana waxaa lagama maarmaan ila noqotay in aan ka hadla arrinta dad badan oo la xiriiray ayaa ii soo diray fiidiyoyo badan oo aan idinla wadaagi doono markaan muuqaalka aniga aan ka baxo fadlan walaal waxaan ka codsan lahaa inaad u duceyso haddaadan u awoodin inaad wax siiso kuma dhahay lambarkan ayaan halkaan soo dhigayaa ku shub lacagta ee waxaan ku leeyahay ugu duceey si walaalnimo si Soomaalinimo iyo si Islaamnimo ugu duceey inuu Ilaahay ka saaro ilaan Ilaah baa keenay Ilaah ayaana ka saari kara fadlan waxaan filayaa inaan si fiican kula socodsiiyay wax ka jira degmada Afgooye waxaana ka rajaynayaa inaad share gareyn doontid oo asxaabtaada aad la wadaagi doontid waxa jira dadaan ogeyn ilaa iyo hadda arintan aan rabno in aan gaarsiino haddaan nahay Soomaali haddaan wadano dhalinta magaca Soomaaliyeed waa mahadsan tahay daawashadaada iyo si wacan aad noo daawatay waxaan ku rajaynayaa caafimaad waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed oo halkaas ku dhibaataysan in Ilaahay oo ka dulqaada dhibaatada waana u gargaaraynaa insha Allah intaan caawin karno intaan musaacadayn karno intaan ku tawarruci karno intuu codkeena gaaraya in aan gaarsiino ayaa naga go'an haddaan nahay dhalinta Soomaaliyeed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إلهي كما سكت الكديلو قفو هاد لقفو تودا aan lahaynin waxas miya loo askaysta Soomaaliyay damirkuna siin kara Soomaaliyay iska inda tiri karna Soomaaliyay dhalinyaro hala kaco qalinkiyo qorigana hala qaato kubi qabiil u doodana hala xiro garab baan u baahanahay haddaan tirsado Afgooyiyo gobolkii hobolka ahaay garab baan u baahanahay galangoolsi baan galay wabigii soo fatahay garab baan u baahanahay koox i garab istaagtiyo ii guntanaysaan u baahanahay hogaamiye daacadoo daruuftayda gartaan u baahanahay waxaanahay gob Soomaali ah mana geysan qaladee garqaad baan rabaa ma garan xaqdariyo waxa runta loogu gaabsado dhibaato markayna soo gaartiyo garab baa la isku lahaaye maanta maxaan gaf marnay
shacab guurguuriyo guryahoodii ka barakacay garqaadkii kumee soomaaliyey gacan marani wax ma qabatee gurmadkii aaway talow gacalkii maa baaba'ay carruuraan galbin lahayn baa maanta geeriyoodee aaway garab istaaggii garsoore waa alle kii keenay go'doonkan baa haatan go'aaminaya